السلام عليكم سو دوادا magacayga waa Najma channelkan waa channelkayga cusub aan ugu talagalay in dadka ku baro luqadda Ingiriiska fadlan adina igu dhiirigelin inaad like-ta subscribe-ka iyo share-ka insha Allah wixii ra'yi aad qabtana igu reeb comment-iga maanta waxaan ku bilaabayaa saddex talo oo muhiim u tahay qof walba luqadda Ingiriiska baranayo in uu fahmo ama ogaado be confident in yourself وأنا نفسدادا ku kalsoon tahay nafsadaada waa inaad siisaa kalsooni buuxda waa inaad aamintaa inaad baran karto luqadda Ingiriiska dad badan ay u barteen oo kale waa inaad isku dhiirigelisaa waa inaad qalbaadkaada aadan fiirinin oo qalbaadkaadana aad ka barato mar walba aad hore u socoto marka talada labaad waxay tahay practice with people from other nationalities waa in dadka ajaanibta aala sheekaysataa badanaa Soomaalida marka luqadda Ingiriiska baranayaan waxay sameeyaan Soomaali ayagoo ah group sameysanayaan ama isku imaanayaan si ay u bartaan luqadda laakiin ma yataa ma fiicna waa laga fiican yahay waxa fiican dadka ajaanibta ah in la sheekaysato hadaa wadamada Afrika ku nooshahay kale sida Kenya Uganda Tanzania ama Europe xitaa waa in dadka ajaanibta kale aad dhaxgali kartaa ala sheekaysan kartaa si ay ugu fududaato la qabsiga iyo kalsooni nafsadaada soo gasho buuxa aad dareemi karto in aad luqadda dadka kale ula hadli karto tan saddexaadna use a notebook to write new words and their meanings xarfaha markaa barato inaad meesha ugu dhaqaaqdo maaha ama janaalkayga ka baro ama macluumaadka soo barto oo iskuul ah ama qof kale inaad ka maqasho muhiim waxa ah eriga aad barto inaad buug ku qortaa waa inaad buug iyo qalin soo qaadatid xarafka aad soo baratay waa inaad ku qortaa hadii maanta kugu cusubtahay kare ereyga oo confidence hadii kugu cusubtahay kale waraaqo soo qaado qalin soo qaado qoro confidence kadibna Soomaali ahaan u qoro oo ah kalsooni marka ku celi kalsooni maxaan ka sameyn karaa ereyana haystaa waa inaad build up words asameysan kartaa xarfaha isku darsan kartaa dhigi kartaa sentence asameysanaya xarfahan israacayo ama xarfahan israacsi karaa ku hadli karaa kadibna xarfahaas markaa meed ku qorato waa inaad ku hadli kartaa dadka ajaanibta oo la hadli hadda confidence soo baratay waxa dhigi kartaa I'm confident qof isku kalsoona ahay my confidence is high kalsoonideeda waa high way sareysaa marka xarfahaas kale isku darsato alagaaga baahan yahay xaraf walba soo baratana inaad meel ku qorto si aad ugu soo celiso xarf kalena aad ugu koobi karto insha Allah intaas ay nagu egtahay maanta waa inoo barito